araga ku jeclahay qalbiga kaliba aad ku tahay sanad wanaagsan oo wacan dhammaanba ummadda muslimiinta iyo waliba ummadda Soomaalida meel kasto ay kaga sugan yihiin geyga Soomaalida iyo caalamkaba barnaamijkani waxa uu kamid yahay barnaamijyada aan ugu talagalay in aan ugu dabaaldegno sanadka cusub iyo curashadiisa ee 2018 iyo waliba sagootinta sanadkii hore ayna dhaafay ee galbaday ee 2017 door karamiya muglow kaabaha noloshiya nafto iftiinka waa beerow koonkaba inuuriyo iyo kolkoliyo kalgacali waraabiyo kaskiya maankaygiyo barnaamijka caawa waxa inoogu martiya oo halkan aynu kula dabaaldegi doonaa sanadkii hore in la sagootin doonaa waa koox ka dhisan magaalada Hargeysa Fansan waxay kamid yihiin kooxaha mawhibada iyo hidaayada gaarkaaba u leh soo bandhigida waliba dhaqan suugaan oo hore ayaga laftooda hal abuurkooda iyo magaranaysa waxyaabo dayaha ka beermoyntu dhigayga raacay dhammaan waxyaa ku faafay dhabti mankaad ku taalo inta dooxayga raacday maxan dul sugay ayaamo maxan dul sugay ayaamo urashadiisa sanadka 2018 baynu soo dhaweeyna kii galbadayna waxaan leenahay maca salaama horta sanadkii hore maxaad si gaar ah ugu xasuusataa tognaan iyo tobnaanba waxa ku xasuustaa haniyay mid kula mida hadan dhugashada ku waayo isay aniga dhaxmooda inaasho ana dareema isay aniga dhaxmo inaasho ana dareema dhammaantiin daawadayaal waxaan idin leenahay sanad wanaagsan oo wacan meel kasto aad ku sugan tihiin barnaamijkana waxa uu idin ka imanayaa qaybtiisa koobaad studio Asab TV ku leeyahay magaalada Hargeysa wana barnaamijyadan ugu talagalay inaan ku dabaaldegno kuna soo dhaweeyno sanadka cusub kuna sii sagootino sanadkii galbaday 2017 radio polio shida la ya bonigar malalof boy galay malalof boy galay habeenkii aan isbaranay inay hurdo igu dambaysay intana aan haleelo ayayo waata hore kugu sheegay isniino xurmay anigu adigan ku ahay adiguna anigadi tahay isniin xubbi waan isnahay xanaano ankaan ku suuray wanaagga ku xeerinayay cugtiya samahan dhisay miyada xididada u siibay sanad wanaagsan markaa tigi maxaad ku xasuusataa sanadkii tiga wallahi waxyaabo badan baan ku xasuustaa waxaan kowka ah wiilkayga curad oo aniga ay dhashay ma sha Allah magacii bish Munir baa la dhahaa Munir ay soo karo soo barbaar maadaama oo Munir xasuusatay wax kale oo aan ku dhahay maxaad xasuusan lahayd waa waxa soo noqday aad baad mahadsan tahay